cabdullaahi iyo nagaad waxay markii ugu horeysay kulmeen 13 sanadood ka hor habeenkii arooskeedu dhacay. wuxuu deganaa cabdullaahi magaalada Manchester ee waqooyi galbeed England oo uu shaqo ka hayay. nagaadna waxay ku soo biirtay reerkooda oo ay cabdullaahi asxaab wanaagsan ahaayeen. maalintii koowaad ee uu nagaad arko cabdullaahi waa uu ka baqay. waxaa muran xumi dhex maray isaga iyo walaasheed oo iyada dhowr sanadood ka weyneed. sida ay nagaad isku qalqaloocinaysay iyo sida ay sanka lahayd ayuu cabdullaahi la cajabay. kolay iyaduna qof ay reerkooda is yaqaaniin inuu yahay ayuunbay ka soo qaaday. sanad iyo bar waxay dushaas ka ahaayeen dad is yaqaana uun. berigii dambe ayay iyaduna shaqo heshay nagaad. waxa ay iibsatay baabuur. isaga sida baabuurta loo kaxeeyo ma aqoon. iyaduse intii ay Manchester joogtay ayay baratay. cabdullaahi waxa uu ahaa wiil inta badan ku mashquulsanaa shaqadiisa. xilliga uu firaaqada yahana wuxuu samayn jiray jimicsi. wuxuuna ahaa wiil ka tilmaaman dhalinyarada kale ee xaafadda kula nool. nagaad aad bay u danaynaysay inay isbartaan oo isku soo dhowaadaan wiilkan. maalin cabdullaahi oo shaqada jooga ayay telefoon u dirtay. goorma ayaad galabta rawaxaysaa ayay ku tidhi. 5:15 ayuu isna ugu jawaabay. waan ku soo marayaa. waxa aan doonayaa inaad dukaan suuq ah wax igala soo iibiso ayay ku tidhi. cabdullaahi oo si uun ula fajacsan gabadhan ayaan aadka isku dhexgelin iyo dalabaadkeeda ayaa ugu jawaabay waa hagaag. 5:15 ayay xafiiskiisa isa soo hortaagtay oo ku wargelisay inay isaga sugayso. si aan caadi ahayn ayuu u degdegay cabdullaahi maalinka. dukaanka iyo waxa inantu u baahan tahay midna muusan ogeyn. inuu sii raaco inuu u jeel qabo ayuunbuu dareemayay. waana markii ugu horeysay ee uu isku arka dareen nagaad u gala. waxa uu ugu yimid baabuurkii. intuu iska furay albaabkii ayuu dalaq yidhi. isla markiiba waxay indhihiisu toos ugu dhaceen laabteeda oo ay in ka mida si ogaal ah u banaysay. cabbaar buu isaga oo aan is ogeyn indhaha ku habsaamiyey. haye iska waran ayay ku bariidisay. waan wanaagsanahay adiguna ayuu ugu jawaabay. waan wacanahay ayay ku warcelisay. kaftan kooban oo korkaxaadis ah iyagoo isku turtuuraya ayay meeshii ka dhaqaaqeen. dukaankii ay ka soo muraadsanaysay ayay la gashay oo cabbaar ku dhex jirtay. markay danaheedii soo dhammaysatay ayay baabuurkii dib ugu soo noqdeen. iyadoo aan u sheegin ayay meel cuntada lagu iibiyo digaag la shilay oo basbaas miiran ah uga soo qabatay. intay dhabtiisa si kaftan ah alaabadii ay soo iibisay ugu tuurtay ayay baabuurkii daartay oo ay laamiga afka u saartay. waxa ay geysay beer oo magaalada oo dhan meel dusha ka eegaysa ku taala oo dadku fiidkii ku caweeyaan. dhowr baabuur oo rag iyo dumar kuwa malaha isqaba kuwa asxaab ah iyo qaar is-shukaansanaya ku dhex jiraan ayaa goobta tubnaa. meel 2 baabuur u dhaxaysa ayay nagaad gaadhigii qutumisoo intay muraayadihii daaqadaha in yar hoos u dejisay ku tidhi do you mind miyaad wax ka qabtaa oo af qalaad ah. not at all ayuu ugu jawaabay isagoo isleh labada afba kula tartan nagaad. cadar aad u udgoon oo ay marsaneed iyo waxa isku milmay urtii digaaga shiilnaa. isaga oo galgacal iyo hamuun digaag oo isgalala dhareeraya ayuu dhowr xabo oo digaagii ka mid ah isdhaafiyey. sharaab ay soo iibisay ayay digaagii ku liqeen. markii ay dhargeen ayay faalo guud oo dunida ah iska galeen. hees ay seenabciga qaadaysa oo baabuurka ka baxaysa ayay cabbaar isla falaqeeyeen. qabrigii jacaylka makiibo dhariba ayay nagaad cabdullaahi kula kaftantay. qof kasta oo jacayl dilo qabrigiisa weeye ayuu ku yiri. jacaylka looma dhinta ayay kula murantay cabbaar.
isna wuxuu ku adkaystay wax kasta oo culays iyo dhibaato jirkaaga iyo maankaaga saara waa loo dhiman karaa waad iska leedahay ayay tiri Nagaad nin wax iska yidhaa miyaan kuula ekaaday ayuu Cabdulaahi ugu jawaabay maya ayay tiri sheekadiina way yara bargooday oo intay cabaar iska aamuseen iftiinka magaalada iyo bilicda dusha ka wada daawadeen ayay kolkii dambe waxay la soo boodeen Nagaad nin wanaagsan ayaad u noqon lahayd gabadha aad guursato hadal uusan filanayn ayuu ku noqday Cabdulaahi arinka wuxuu ugu jawaabay ayuu garan waayay miyay ku doonaysaa miyay iska ka amaanaysaa mid kale ayay ku maslaxaynaysaa maxaad tidhaahdaa maxaad yeeshaa samaysaa mawjado badan oo fakira ayaa maskaxdiisa qarqiyay midna kuma dhaqaaqine wuu iska aamusay Cabdulaahi habeenkaas wuxuu baabuurka ka degay isaga oo niyadiisa wax ku talaalmeen Cabdulaahi waxa ku abuurmay jacayl laga bilaabo habeenkaas tilmaamnaa ee uu digaaga iyo nin la guursada ayaa tahay uu isku goostay waxa laabtiisa fadhiista oo degal ka dhigtay jacayl uu u galay Nagaad habeeno iyo maalmo badan oo dambe ayay wada fadhiisteen khadeeyeen casheeyeen oo ay xitaa filmo badan wada daawadeen Nagaad oo ahayd gabar furfuran dibci wanaagsan dulqaad badan karti haday jirtana iyada uun ay ku idishahay ayaa waxa uu Cabdulaahi ka bartay dhinac ka mid ah dabeecadaheeda oo uusan qof weligii kula kulmin waa dhinaca naxariista waxa uu Nagaad ku bartay daryeel dawris iyo il naxariiseed oo ay dadka ku eegto wax kasta oo qofka uu qabo ama luraya waxay ahayd qof jecel inay ogaato oo ay wax kala qabato hadii ay dareento in qofku haraad qabo oo uu qaxwo u baahan yahay ama gaajo hayso si hagar la'aan ah ayay xil isaga saartaa sidii ay u caawin lahayd habeen bay isu raaceen film cusub oo markaas soo baxay aad bay ugu heelanayd inay filmkaas daawato Nagaad salool nacnac iyo sharaab filmka ay ku daawadaan ayay hore u sii miisteen markii filmkii bilaabmay ayaa Nagaad caajis dheeraad ah lagu soo rogay inanta maxaa haya baa gashay Cabdulaahi isagoo maskaxdiisa u diray dhowr su'aalood ma waxaan u dhintay jacaylkii Nagaad waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa waa tabintii Nuur Shariif shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan Cabdulaahi Cawad haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee Nagaad iyo dibadahan uu caalamku ka heshay subscribe sar channelkeena Aayaha Nolosha TV lana soco habeen kasta oo Axad ah qayb kamid ah sheekada